بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام انت مركان كغا بخنو دروستا ان كفايدينو waxa kale oo aan tusaale ahaan u soo qaadan karaa nataa'ijtii ka dhalatay hijrada iyada hijradaas nataa'ij badan baa ka dhalatay laakiin waxa ugu muhiimsanayd oo aan dhihi karaa marka ugu horeysaba iqaamada dawladda islaamiyya fi al-Madina al-Munawwara dawlad ayaa la istaajiyay dawlad ayaa lagu dhisay dawlad baa ka dhalatay oo hore aan u jirin oo muxuu ahaay nabiga kaleey salaatu wasalaam uu dhisay taas oo ay kulminayso shareeco iyo xukunba macnaha qaanuun iyo xeer leh xukun iyo maamul leh waxaad ogtiin anbiyada ilaahay subhanahu wa ta'ala ama rususha uu soo dirayay qaar badan oo kamida waxa laga yaabaa in shariico loo soo dhiibo laakiin ayna maamul iyo xukun iyo dawladnimo inayna qabanin baa dhici karta yani ay ahaayeen laakiin dacwada iyo khayrka inay dadka gaarsiinayeen marka sidaa darteed baa marka meesha waxa ka dhalatay dawlad oo xeer leh oo xeerkeeda iyo shariicadeeda ay ku qotonto shariicada islaamka ay ku qotonto waxa kale oo maaragtay meesha ka soo baxay qaa'id iyo hogaamiye oo madaxweyne waxa dooni dhaho oo nabiga kaleey salaatu wasalaam uu matalayo marka dawladdaas ayaa ka dhalatay dawladdaas iyadana marka waa dawladihii ugu waqtiga dheeraa amba marka dambana ay ka dhalan doonto dawladii islaamka ee muddada dheer sii jirtay oo al-khilaafa al-islaamiyya wix loo yaqaanay oo iyadana muddo dheer jirtay oo marka waxa la dhihi karaa 13 qarni ayay sanka isku haysay walow wax yar iska dhadhacaano laakiin dawladdu nabigu dhisay kaleey salaatu wasalaam kun iyo 300 sano ay sanka isku haysay ilaa markii dambe maaragtay xilligii oo 1924 nimanka dawladaha mustacmirka ah reer galbeedka ingiriiska iyo faransiiska iyo ay dawladii ama khilaafada islaamka ay ka takhaluseen laakiin intii ka horeysay khilaafadaasi muddo dheer bay diintaas ay soo socotay dawladdaasina marka waa mid aan ku taariikhayno marka maanta waxaan dhahaynaa taariikhda hijrigu waxay maraysaa 1442 macnaheedu waa maxay dawladdaas maalinta dhalatay markii sanad ahaan laga soo bilaabo ka sanad booy ma bisha nabigu hijrooday ma sanadkii ay hijrada gashay xagga qamariga marka la fiiriyo waxa laga joogaa way maanta 1442 sano ayaa laga joogaa marka hijrada nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa ka dhalatay dawladdaas aad iyo aad ka u ballaaran dawladdaas marka nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu magaalada Makka ka tagay oo Madiina la yiraahdo uu tagay wixii ugu horeeyay oo qabtay waxa kamid ahaa al-ukhuwatu fillah dawladdaas waxyaabihii lagu dhisay waxay ahayd walaalnimada innamal mu'minuuna ikhwa mu'miniintu ayaga walaala sida darteed baa nabigu wuxuu sameeyay dawladdaas marka si loo xalliyo mashaakilkeeda iyo problemkeeda dad badan oo waxa jira dhulkooda ka soo barakacay oo ka soo qaxay sida hadaan ku hadalno luqada casriga hadda la isticmaalo barakacayaal amba dad qaxooti ah waxa rabtide dad dhulkooda ka soo hijrooday oo ka soo tagay ayaa ahaan dadka iyaga marka waxay u baahdeen nolol bay u baahan yihiin meel deegaan bay u baahan yihiin nabigu marka muxuu sameeyay hal nin oo muhaajira iyo hal yani ansaar ah ayaa marka ilaahay subhanahu wa ta'ala oo sidoo amray yani in la walaaleeyo intayna soo degin walaalnimadan dambe ah walul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah dadka raximka ayaga isdhaxli oo awla su'aalay markaan dambe laakiin aayadaas waxa ka horeysay inay ahaayeen dadka muhaajiriinta iyo ansaartu inay ahaayeen يعني dad aan bayna rahimin ayadoosan ka dhaxayn wax walaalnimo ayna ka dhaxayn oo xagga qaraabada nasabka in la walaaleeyo oo xataa waxa la sheegay in isdhaxli jireen oo dhaxalka xataa uusan markaa soo degin marka dadkii in dar ilaahay lagu walaaleeyay ayaa marka halka ayada ka soo baxday oo ay noqdeen dad walaala oo diinta ilaahay ku walaaloobay waxyaabaha kale ka soo dhashay ama dawladdaas yani nabigu uu dhisay kaleey salaatu wasalaam yani waxa weeye in laga dhigay dadkii saf waaxida oo markaas midaysan jihaad iyo difaaca dalka iyo walaalnimo u midaysan in laga dhigay oo marka ay noqdeen dadkii dad military ah oo u diyaarsan jihad fi sabilillah maxay la dawlad yar oo curdan ayaa meesha ka dhalatay cadow badanna way leedahay sidaa darteed baa marka qof kasta oo muslim ah oo qaadir ala hamli silaah awood u leh inuu hubka qaado wuxuu ahaa qof yani ilaahay diintiisa yani maaragtay iyo dawladda la dhisay ee yar yani u dagaalamaya oo u jihaadaya waxa kale oo ka soo dhalatay bulsho cusub oo hore aan loo aqoonin waxa soo baxday waagi hore carabtu waxay ahayd dad iska jaahili ah gaalo ah kala caqiida ah yani khilaaf badan uu ka jiro maya mujtamac markaan waxa meeshan ka soo baxay mujtamac islaami ah baa ka dhashay meesha iyadahay yani hijradii nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa ka dhashay yani mujtamac islaami ayaa ka dhashay mujtamacaas oo marka isku si u fikiraya dhaqaale ahaan marka la yiraahdo nidaam dhaqaale leh oo ribadii ka soo horjeeda oo in xaraan xoolaha lagu cuno ka soo horjeeda oo qaab dhaqaale oo cusub iska leh waxa soo baxay mujtamac يعني بلشاهان
si gaar ah u dhisan oo ha noqoto habkay isu guursanayaan, habkay u xiriirayaan, habkay u qaraabroobayaan, bulsho cusub ayaa ka soo dhalatay. waxaa ka soo baxay bulsho cusub oo military ahaan isku xiran oo si gaar ah ayaa ka soo dhalatay. marka sidaa darteed baa marka يعني waxaan dhahaynaa marka hijrada nabiga kaleey salaatu wasalaam waxay ahayd wax aad iyo aad u weyn. markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam hijrada waa laga hadlayo markii hijrada macaanideeda marka hijradu fadli badan bay leedahay. qofku inuu meel ka tago oo uu meel aado oo diintiisa uu la cararo يعني oo nabiga kaleey salaatu wasalaam uu gargaaro oo Maka ka tago oo Madiina ka tago fadli badan bay leedahay. laakiin markii dambe waad ogtiin diinta islaamka way xoogeysatay magaaladii Makka al-Mukarrama la dhihi jiray nabigu wuu furtay kaleey salaatu wasalaam fatxu Makka yimid mar hadduu fatxu Makka yimidna nabigu wuxuu yiri laa hijrata ba'da al-fath mar haddii marka hijro dambe ma jirto oo macnaha Makka intii laga soo tago Madiina la soo aado ma jirto laakiin jihaadun wa niyatun niyad iyo jihaad iyo way jirtaan. markaas markii dambe fadli badan maadaama loo sheegay nabigu macaanidii uu sii balaariyay markaas macaanideedu waxa ay noqotay markii dambe hijrada in laga dhigo wax balaaran oo macna ku fadhiyo oo in ahayn meel laga tagay meel la aaday ay tahay inuu qofku ka fogaado wax kasta oo xun. al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahaa Allahu anhu. muhaajir waxaa la yiraahdaa baa leeyahay qof kasta oo maartay wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka reebay يعني كهجرودة مركز ساعة درت بقى هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ما نك أهين ملك تجيس كلمة أهين وحي أهيد يعني الظلم إن لقى عربي أهيد وحي أهيد كلا تكسنا إن لقى وحي أهيد إن لا عربي عدالة وحي أهيد إن لا عربي محوها حرية وحي أهيد إن لا عربي محوها هاي يعني إن لا استاجيو مجتمع إسلامي أو سود اللي ترن إن لا استاجيو سيدا كلاته هجرة وما رأيتي وحاول معاني بدن بيكون سنة معاني ذا هجرة كنت سنة وحكم ذا نيو wanaagsan bay ahayd. marka nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri hijro waxa la yiraahdaa macnaha hijradu la tanqadi'u al-hijratu hatta tanqadi'a tawbatu. hijradu macnaha yaani ma go'ayso yiri ilaa toobadu ay ka dhamaato. dabcan toobaduna waxa weey hatta taqrub ash-shamsu min maghribiha qoraxdu inay ka soo baxdo meesha u dhacdo moogiye yaani toobaduna ma go'ayso. sidaa darteed bay marka hijradu qofku mar walba inuu xumaanta uu ka hijroodo una leh carara muxuu ahday diintiisu meesha ay maartay uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala si sax ugu caabudi waayo naftiisa iyo maalkiisa haddii marka istidcaaf iyo wax lagu la kaco iyo xorriyad darro oo uu heli karo meel uu maartay muslimiintu ay isku ururayaan oo xoog ku yeelanayaan oo asaguna uu ka noqon karo xubin weyn uu ka noqon karo mar walba way furan tahay oo maxaa yeelay niyatun wa jihaadun mar walba way iska jiraan inama al-a'maalu binniyat wa inama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. mar walba qofku hadduu Ilaahay dartiisa uu hijroodo yani waxayna u ahaanaysaa hijradiisu dar Ilaahay. waadna ognahay Soomaali maanta meel kastoo joogto way kala hijrootay way kala qaxday marka qofka Soomaali waxaan u malayn dhulkii uu ku dhashay jooga way yar tahay. nin walba waxa weey dhulkii uu ka ku dhashay uu ka tagay meel kale oo aad marka qofka hadii uu dhulkii uu ku dhashay uu ka tago oo uu maartay markaas laakiin uu u tago inuu dad dulmo dad dhaco dad barakiciyo haduu u tago micnihiisu taas waxa la yiraahdaa baqi iyo cudwaan iyo saa'il iyo dhulmi baa la dhahaa. laakiin qofku haduu u tago naftiisa inuu la cararo diintiisa la cararo ehelkiisa la cararo muxuu ahaay marka meel uu ku badbaadayo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku caabudayo haduu helayo taasi waa hijro wanaagsan waana niyatun wa jihaadun wa niyadana waa loo abaal marinaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala. marka waxaan weydiisanaynaa dadkeena badan ee adduunyada u kala qaxay inuu oga dhigo yaani hijro wanaagsan ninkii niyad wanaagsan lahaa maxaa yeelay niyadu waa inama al-a'maalu binniyat mar walba niyada ayaa sax ah. marka sidaa darteed marka waxaan dhahaynaa hijradu way ka balaaran tahay meel laga tago meel la aade waa in xumaanta laga tago oo khayrka la aado ayaan hijro dhihi karaa. aad iyo aad baad u mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.